dhaqdhaqaaq la sameeyo dhacda ka horeysay wariyayaal dhaqsanaya oo dhawaaq tifaftiran dhegta kuugu shubaya ka dhagayso hiiraan weyn dhinac uma janjeerno dhanna lama jirno wehelkaaga ka dhigo radio hiiraan weyn kulan wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada ugu doorka ron warka subaxnimo ee warbaahinta hiiraan weyn. dowladda Soomaaliya oo ka hadashay dib u dhaca shirka magaalada Dhuusamareeb iyo shirar gooni-gooniyaha oo ka soconaya magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug. dagaal xooggan oo u dhexeeya ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya iyo dagaalyahanada Al-Shabaab oo ka dhacay duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay gacanta ku dhigtay hub iyo xubno ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab. akhbaraadka dibadda waxaad ku dhageysan doontaa saraakiil ka tirsan FBI-da dalka Mareykanka oo lagu dilay gobolka Florida ee dalka Mareykanka. hiiraan weyn radio kala soco warar xaqiiqo ah ama booqo website-keena hiranweyn.net. markale subax wanaagsan saaxiibayaal waa Arbacada taariikhda miilaadigu waxay ku beegan tahay 3 bisha 2 ee Febraayo sanada 2021 ka xad ku soo dhawaataan warkii subaxnimo ee warbaahinta Hiiraan oo intii ka faahfaahsan oo saakeedin si aan baqaaday Yaasiin Cali Axmed waxaan ku hormarayaa Samareeb. dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay dib u dhaca ku yimid shirka ka soconaya ama lagu wado inuu ka furmo magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug xilli gudaha magaaladaasi ay ka socdaan shirar gooni-gooni oo u dhexeeya madaxda halkaasi ku kulantay. shirka madaxda dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa lagu waday inuu furmo xalay hase yeeshee dib u dhac ayaa ku yimid waxaana arrintaasi ka hadashay dowladda Soomaaliya. wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in shirka madaxda ee uu markaasi ku baaqay madaxweyne Farmaajo lagu waday inuu furmo 6 maqribnimo ee xalay balse dib u dhac ku yimid sababa la xiriira safarka madaxda maamul goboleedyada qaar. waxa uu sheegay in madaxweynayaasha maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland oo markaasi daalna awgeed uu shirku dib u dhac ku yimid si yeeshee saacadaha soo socda oo maanta lagu wado inuu ka furmo magaalada Dhuusamareeb isla markaana looga hadli doono xaaladda dalka. sidoo kale wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube ayaa waxa uu tilmaamay in shirka uu daba socdo shirkii 17 Sebtembar 2020 looga gaaray arrimaha doorashooyinka dalka magaalada Muqdisho. sidoo kale diiradda lagu saari doono muranka ka taagan qabsoomidda doorashada ka dhaceysay sidii xal buuxa looga gaari lahaa. isagoo sii hadlay wasiirka warfaafinta ayuu waxa uu sheegay in rajo wanaagsan ka qabaan shirka inuu furmo madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada iyo sidoo kale gobolka Banaadir. sidoo kalena xal buuxa looga gaari doono arrimaha ka taagan doorashooyinka dalka. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha xukuumadda dalka iyo dhammaan madaxda maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxaana qorshaha shirku ahaa inuu socdo 1 ilaa 3 bishan oo ku eg maanta balse 2 maalmood ama 3 maalmood ayuu dib u dhac ku yimid shirka madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ka jira. Cismaan Abuukar Dube ayaa warbaahinta la hadlay.
awa bisha February walaba waxaynu sii galeynaa 3 February waxa aynu joognaa magaalada Samareeb waxaan rabaa halkan inaan ka soo jeediyo fariin ku saabsan shirkii madaxweynuhu iclaamiyay Samareeb in furitaankiisii iyo hawshiisii inaan halkan shacabka Soomaaliyeed la wadaago halka wax maraya intaan taagelin horta waxaan rabaa inaan bahda saxaafadda oo runtii caawadan istaanbay ahaayo diyaarsana inaan u mahad celiyo dhammaantii waa mahadsantihiin bahda warbaahinta waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo oo shacabka Soomaaliyeed noo sheego madaxda galmudug oo ugu horeeyo madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor madaxweyne ku-xigeenka Iid dhammaan gudoomiyaha golaha baarlamaanka Gacal iyo xildhibaanada iyo golaha wasiiradu sidii qiimaha lahayd ee ay noo soo dhaweeyeen labadii maalmood ee aanu magaalada joognay waxa kale oo rabaa inaan u mahad celiyo shacabka reer galmudug dhammaantood meel ay joogaanba gaar ahaan reer Samareeb oo xil gaar ah iska saaray wufuudan culus ka socota dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah ee maamul goboleedyada waa shirkii afraad ee magaaladan lagu qabto magaaladana waxay astaan u tahay samaha suluxa iyo heshiiska ummadda Soomaaliyeed oo ku amaanaya reer Samareeb waxaan kala rabaa inaan u mahad celiyo madaxdii dalka ee gobolka timi iyo state-ka oo ugu horeeyo madaxweynaha federaalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Maxamed Xuseen Rooble state-yadii kale ee soo horeeyay maalinta naga soo horeeyay Dorraadimi sida madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen madaxweynaha Hirshabeelle Guudlaawe iyo gudoomiyihii gobolka Banaadir oo isaguna maanta na soo gaaray waxa kale oo runtii iyaguna maanta yimi madaxweynihii Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxa kale oo isna galabta soo gaaray magaalada Samareeb madaxweynihii Puntland Saciid Cabdullaahi Deni intaas waa warbixinta aan rabo inaan siiyo dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dhammaan madaxda timi hadday heer federaal tahay iyo hadday heer maamul goboleed tahay ba aad iyo aad u mahadsan ku talgalka shirku wuxuu ahaa inuu caawa furmo 6 maqribnimo adigu madaxda oo daalanayd iyo hawsha dib u dhacday bari subax inuu furmo shirkanna waxa aan ka filaynaa inuu noqdo ayadaad la ayadayo shirkii 17 September xamar ku soo gabagaboobay ee lagu gaaray go'aamada doorashooyinka iyo horsocodka dalka bari subax oo kulli saxaafadda halkan wargelin ku siin doono haday gelinka hore suurtagal weydaan fiidka oo kale aan siin doono aanu jecelahay mar walba inay nala wadaagaan kaasi waxa uu ahaa Cismaan Abuukar Dube wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda dalka waxaana uu ka warbixinayay shirkii xalay baaqday ee magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug codkaasi oo dhameystiran barnaamijkeena falaqaynta iyo sidoo kale barnaamijyadeena iyo wararkeena xiga ayaan idinku ku soo gudbin doonaa sidoo kale bogoggeena internet-keena ku daabacnay dhinaca kale dagaal xooggan isla markaana u dhaxeeyay ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya gaar ahaan Danab iyo Al-Shabaab ayaa waxa uu ka dhacay duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe Maxamed Ibraahim Maxamed ayaa faahfaahinaya warkan dagaalkan oo geystay khasaare kala duwan ayaa waxa uu xalay ka dhacay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana uu u dhaxeeyay ciidamada dawladda federaalka iyo ururka Al-Shabaab dagaalka ayaa yimid kadib markii xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen bar control oo ciidamada maamulka degmada Balcad ku leeyihiin dhanka waqooyi ee degmada Balcad waxaana halkaasi ka dhacay dagaal ku dhawaad saacado socday dad goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen in bar control ee la weeraray inay ku taal barta halka loo yaqaano kulanka yarow farxaan wadada ka timaada dhinaca magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle
inta la xaqiijiyay hal askari ayaa dagaalkaas ku geeriyooday inkastoo khasaaraha uu intaasi ka badan karo maadaama xilliga dagaalka uu dhacayay ahayd waqti dambe oo habeen ah maamulka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe weli kama hadlin dagaalka ha yeeshee warkii ugu dambeeyay ee saaka naga soo gaaraya degmada Balcad ayaa waxay sheegayaan in xaaladda ay tahay mid haatan degan isla markaana isku socodka dadka iyo gaadiidka ay yihiin kuwa sidoodii ku soconaya aad buu mahadsan yahay Maxamed Ibraahim Maxamed oo warbixintaasi nala socodsiinay dhinaca kale dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay gacanta ku dhigtay hub fara badan iyo sidoo kale xubno ka tirsan dagaalyahanada hubeysan ee Al-Shabaab sida warkan oo ku sii ambaqaday wariyahayaga Shariif Shoori Xanshi ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgallo qorsheysan waxa ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose oo ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab howlgalkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay deegaanka Baladul Amiin oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose taliyaha ururka afraad guutada 16aad ee ciidamada xoogga Commandosta Danab Maxamed Saleebaan oo hogaaminayay howlgalkan ayaa waxa uu sheegay ujeedka howlgalkan inuu ahaa in lagu burburiyay fariisimo ururka Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaanadaasi ay ka dhaceen howlgallada iyagoona sheegay inay bartilmaameedsadeen madax iyo waliba sidoo kale maxkamad ku taala deegaanka oo fariisin ay ku sugan yihiin Al-Shabaab sidoo kale saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen inta howlgalkan uu socday in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay gacanta ku dhigeen hub iyo saanad ciidan oo ay leeyihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo xubno ka tirsan kooxdaasi la bartilmaameedsaday sida ay sheegeen aad buu mahadsan yahay Shariif Shoori Xaaji halka warkaasi subaxnimo oo si toos ah idinkaga imaanaya waa studio koowaad ee warbaahinta Yarewan ee magaalada Beledweyne balmarkane haddii aynu markaasi aadna akhbaaraadka caalamka waxaa ka mid ah saraakiil ka tirsan FBI-da dalka Mareykanka ayaa lagu dilay gobolka Philadelphia ee dalkaasi Mareykanka hay-adda dambi baarista Mareykanka ee loo yaqaano FBI-da ayaa waxay sheegtay in 2 ka mid ah saraakiisheeda lagu dilay 3 kalena lagu dhaawacay iska horimaad markaasi ka dhacay gobolka la yiraahdo Philadelphia ee dalka Mareykanka shilkani ayaa dhacay markii saraakiil ka tirsan FBI-da ay markaasi isku dayeen in ay baaraan guri ku yaala degmada Fronte halkaasi oo looga shakisanaa in ay ka socdeen falal markaasi dambiyeed ka dhana carruurta qof looga shakisanaa in uu weerarkaasi ka dambeeyay FBI-da ayaa xaqiijisay in isna la dilay wararka qaar ayaana sheegaya in isaga uu isdilay hay-adda dambi baarista ee Mareykanka la yiraahdo FBI-da ayaa weerarkaasi markaasi talaadadii ku sheegtay kii ugu khasaaraha badnaa ee soo gaara saraakiil ka tirsan FBI-da Mareykanka muddo sanad ah warkii subaxnimo ee warbaahinta Yarewan saaka weynageynta saaxiibyada waxaan la socodsiinayaa Sina Ali Axmed Shariif Shoori Xanshi oo farsameynay cid uu sheegay waxay markale dib kaga dalacan karaan baraheena bulshada ee ku sundan magaca Yarewan.net ama .com idina waad ku mahadsantiin dhageysiga iyo la jaanqaad